asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu idilkiinba kusoo dhawaada janalkeena oo hel sports kaasi oo aad ka daawataan wax walba oo ku saabsan ciyaaraha. Qodobada maanta ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona hadduu sareeyo ka dhigo Jadon Sancho oo shaaca ka qaaday xidigu uu jeclaa kubadda cagta markii uu yaraa. waa kuma xidigaasi miyuu Ronaldo diyaar u yahay kulanka habeen dambe ay wajahayaan Lithuania? waxaa arintaasi ka jawaabay xidig ka tirsan xulka qaranka Portugal oo xidiga barnaamijka kaga bogo. maalin maalmaha ka mid ah waxaan ka ciyaari doonaa horyaalka Serie A Luka Modric oo sidaasi ku dhawaaqay degdeg xidiga kooxda kubadda cagta ee Manchester City Bernardo Silva oo la ganaaxay. maxay tahay sababta? waxaad kaloo maqli doontaan kala sareynta horyaalada Serie A Talyaaniga, liigaha Spain iyo horyaalka ugu xiisaha iyo xamaasada badan ee Ingiriiska. qodobadaasi oo faahfaahsan goordhow u diyaargalooba. intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door koronaa ciyaaraha, bal markana kusoo dhawaada ayagoo dhammaystiran oo aan idin sii akhriyo anigoo ah Cadceed Maxamed Isaaq Cadceed Deeqsiya. qodobkeena ugu horeeya ayaa wuxuu noqonayaa maanta Jadon Sancho oo shaaca ka qaaday xidigu uu ugu jeclaa kubadda cagta markii uu yaraa. waa kuma xidigaas? laacibka khadka dhexe kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund Jadon Sancho ayaa shaaca ka qaaday xidigu aadka u jeclaa markii uu yaraa, waxaana ka mid ah halyeeyga reer Brazil iyo naadiga Barcelona ee Ronaldinho. Sancho ayaa ka mid ah xidigaha da-da yar ee kubadda cagta kuwooda ugu muhiimsan ee xilligan, iyadoo ay jiraan kooxo dhowr ah oo xiiseynaya inay helaan adeega xidigan. dabcan waxaana ka mid ah kooxda Manchester United, Manchester City iyo Real Madrid iyo Paris Saint-Germain. wargeyska Daily Express ee dalka England ka soo baxa ayaa soo xigtay wareysi uu bixiyay Sancho, waxaana hadaladiisii ka mid ah Ronaldinho wuxuu ahaa shaqsiga ugu weyn ee aan caadaystay inaan daawado YouTube-ka, laakiin sidoo kale waxaan jeclaa Frank Lampard iyo Didier Drogba markii ay u ciyaarayeen Chelsea. waxayna ahaayeen saddex ciyaaryahan ee aan indhaha ku hayn jiray, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay xidigii hore ee kooxda Manchester City iminkana xiran maaliyadda kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ee Jadon Sancho. miyuu Ronaldo diyaar u yahay kulanka habeen dambe ee Lithuania? waxaa arintaasi ka jawaabay xidig ka tirsan xulka qaranka Portugal. xulka qaranka Portugal ayaa habeen dambe wajihi doona dhigiisa Lithuania kulan ka tirsan isla reebka koobka Euro 2020 iyadoo 3 maalin kadib ay ciyaari doonaan xulka qaranka Luxembourg ee wareegga ugu dambeeya. haddaba xidiga xulka qaranka Portugal iyo kooxda Inter Frankfurt ee Gonzalo ayaa wuxuu sheegay in xidiga ay isku wadanka kasoo horjeedaan Cristiano Ronaldo uu diyaar u yahay inuu ciyaaro kulanka habeen dambe ee Lithuania, isagoo tilmaamay inuu yahay xidiga adduunka ugu fiican. Ronaldo ayaa la bedelay kulankii ugu dambeeyay ee kooxdiisa Juventus ay wada ciyaaraan AC Milan halkaas horyaalka Serie A Talyaaniga, iyadoo ciyaarta kadib macalinka Juventus Maurizio Sarri uu sheegay in Cristiano Ronaldo uu dhaawac qabo, laakiin ciyaaryahanka ayaa si dhaqso leh ugu jawaab celiyay kadib markii uu kasoo muuqday xulkiisa qaranka Portugal ay diyaar u yahay guruubyada kulanka habeen dambe ay wajihi doonaan Lithuania. haddaba xidiga xulka qaranka Portugal iyo kooxda Inter Frankfurt Gonzalo ayaa shirkiisa jiraa'id kadib wuxuu ku sheegay Ronaldo wuxuu joogaa halkan sababtoo ah wuxuu diyaar u yahay inuu ciyaaro, laakiin nasiib daro xaaladiisa jir ahaaneed uma lihi waayo aragnimo caafimaad. waxaana imid shalay 9 subaxnimo oo dhiman 10 daqiiqo. waxaan helay waqti aan ku salaamo Ronaldo. sidaa ogtihiin tani waa markii ugu horeysay ee aan la kulmo kabtanka sida cad. waxaan weydiiyey su-aal ku aadan waa sidee xaaladaada jir ahaaneed, laakiin halkan waa boqolkiiba isaga sida uu fudud waa kan ugu fiican adduunka. taasna waa mid muujinaysa wax walba oo ku saabsan xaaladda caafimaad iyo fiicnaanta uu leeyahay Cristiano Ronaldo ayaa hadalkiisa kusoo gabagabeeyay Gonzalo oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Inter Frankfurt oo ka dheesha horyaalka Bundesliga ee dalka Jarmalka. maalmaha ka mid ah waxaan ka ciyaari doonaa horyaalka Serie A Luka Modric oo arintaasi ku dhawaaqay. xidiga kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Luka Modric ayaa sheegay inuu maalin uun laga yaabo inuu ka ciyaaro horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga.
Luka Modric ayaa dhinaca kale sheegay inuu aad u jecel yahay horyaalka Serie A dalka Talyaaniga. 34 sano jirkan Luka Modric ayaa lala xiriirinayaa inuu u dhaqaaqo horyaalka Serie A xagaagii hore, gaar ahaan kooxda AC Milan ama Inter Milan, laakiin ugu dambeyntii wuxuu iska sii joogay safka Real Madrid ee xilli ciyaareedkan. Haddaba, wareysi uu ku bixiyay Luka Modric shabakadda Sky Sports ee fadhigoodu yahay dalka Talyaaniga ayaa waxay xaqiijinaysaa in fikradda uu xiddiga reer Croatia ugu dhaqaaqayo horyaalka Serie A Talyaaniga weli miiska saaran tahay. Luka Modric ayaa ka jawaab celiyay kadib markii la weydiiyay su'aal aadan suurtagalnimada ugu dhaqaaqi karto horyaalka Serie A, wuxuuna yiri: waan jeclahay Talyaaniga, waxay aad u ogtahay Croatia. Sidoo kale waxaan daawadaa horyaalka Serie A sababtoo ah ku sugan qaar badan ee saaxiibadeyda xulka qaranka halkaas oo ay ka ciyaaraan dadka ugu fiican ee kubadda cagta, ayuu hadalkiisa ku sheegay. Laacibka xulka qaranka Croatia ee Luka Modric ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa mar uun inuu ku ciyaaro horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga. Waan arki doonaa waxa dhaca. Waxaa laga yaabaa inaan maalin uun ka ciyaaro horyaalka Serie A Talyaaniga, laakiin kama talinayo inaan waqtigan ka dhaqaaqo Real Madrid. Waxaan halkan u joogaa inaan ahay xiddig ka tirsan Real Madrid. Waxaan jeclaa inaan joogo Real Madrid. Ilaa iyo hadda waxaan mustaqbalkayga ku arkaa halkan oo kaliya, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay xiddigii hore kooxda Isbaanishka iyo xulka qaranka Croatia ee Luka Modric. Xiddiga kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo la ganaaxay. Sababtu maxay tahay? Laacibka khadka dhexe kooxda kubadda cagta ee Manchester City Bernardo Silva ayaa ganaax culus garka loo geliyay kadib markii uu fal cusurnimo kula kacay saaxiibkiisa ay isku kooxda yihiin ee Benjamin Mendy. Bernardo Silva ayaa lagu ganaaxay hal kulan inuu bixiyo lacago markii uu Twitter-ka ku soo cunsurnimeeyay Benjamin Mendy. Wuxuu Twitter-ka soo dhigay Silva bishii la soo dhaafay laba sawir isaga oo Benjamin Mendy iyo caruur ah iyo kartoon cunug madow oo afruuryaha ka cabsan leh. Taasi waxay xiriirka Ingiriiska u arkeen fal cunsurnimo. Bernardo Silva ayaana arrintaasi ay ka noqotay mid uu asiga ka argagaxo. Fariimaha warbaahinta xiriirka bulshada ay la isku mariyo ayaa dhaliyay kheyladaan, iyadoo inta badan ay dadku sheegeen Bernardo Silva uu arrintaasi ku cusurnimeyay dadka madow, taasi oo horseeday in xiriirka FA ay arrintaasi isaga ku ganaaxaan. Xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ayaa maanta xiddiga reer Portugal ku ganaaxay hal kulan iyo inuu bixiyo lacago. Bayaan ka soo baxay xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ee FA ayaa lagu yiri: Bernardo Silva waxaa la ganaaxay hal kulan oo tartan rasmi ah, waxaana sidoo kale lagu ganaaxay inuu bixiyo, waxaana qasab ah inuu dhameysto ganaaxa kadib markii uu qirtay inuu sharciga jebiyay. FA ayaa xiriirkaas kubadda cagta waxayna ku fadhiisteen in hal kulan xiddiga reer Portugal la ganaaxo. Xiddiga khadka dhexe kooxda kubadda cagta ee Manchester City 22 bishii December 2019 isagoo isticmaalay warbaahinta xiriirka bulshada wuxuu jebiyay xiriirka FA maadaama uu aflagaado ama arrimo aan ku habboonayn in la isku isticmaalo faraha bulshada soo dhigay qeexay ganaaxa FA maadaama ay jirto tixraac muujinaya inuusan yahay xiddig ka baxsan inuu saaxiibkiisa isku kooxdiin ee aflagaadeeyo, ha ku saabsanaato midab ama yeesan ku saabsanaanin. Inagu waxaan ilaalinaynaa asalka qoomiyadaha ay xiriirka kubadda cagta ee Ingiriiska ee FA hadalkooda ay ku soo afjareen. Kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo dib ugu soo cusboonaysiisay doonistii weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee Leroy Sane. Bayern Munich ayaa lagu waramayaa inay dib ugu soo celinayso haatan xiisihii ay u qabto weeraryahanka 90 milyan oo gini ku qiimeysa kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee Leroy Sane. Leroy Sane ayaa dhaawac ugu maqan kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester City oo kooxda haysata horyaalka Bundesliga ayaa la kulantay wakiil la socda City xagaagii la soo gudbay. Leroy Sane ayaa dhaawac ugu maqan kooxda kubadda cagta ee Manchester City waqti dheer ah
Lorenzana ayaa lagu qiimeeyaa 90 milyan oo gini kadib dhaawacii Zane ee jilibka ka soo gaaray bishii Agoosto ayaa ka dhigaya in weeraryahanka kooxda Manchester City garoomada uu ka maqnaado ilaa 2020 ayaa la micno ah in xiisaha Bayern Munich ay ka baxdo. Isagoo la hadlayay wargeyska Daily Mirror, xubin ka tirsan guddiga Bayern Munich ayaa doonaya inay xiddigan dib ugu soo laabtaan xiisihii ay u qabeen. Waxaana arki doonaa sida ay wax ka socdaan, anigoo ah gudoomiyaha guddiga talinta islamarkaana xubin ka ah guddiga kormeerka. Waxaana kalsooni weyn ku qabaa hogaaminta isboortiga kooxda Bundesliga ka dhisan ayaa diyaar u ah in Zane heshiiska ka saxiixato, iyadoo aragto 23 sano jirkan inuu sanadkii kaliya qaadanayo 20 milyan oo gini. Dhinaca kale, Manchester City ayaa qorsheynaysa sidii ay heshiis cusub ugu saxiixan lahayd Zane, kaasoo heshiiskiisa haatan uu ku egyahay dhammaadka xilli ciyaareedkan soo socda. Waatay kooxda uu wadahadalada la galay xiddiga Manchester City ee David Silva si uu ugu biiro xagaaga soo socda. Ciyaaryahanka ka tirsan kooxda kubadda cagta Manchester City ee David Silva ayaa la sheegayaa inuu wadahadalo la galay naadi cusub si uu ugu biiro. Kabtanka Manchester City ee David Silva ayaa lagu soo waramayaa inuu wadahadalo la galay kooxda Vissel Kobe ka dhisan Japan, xilli ay labada dhinac wadahadalo isla gaareen suurtagalnimada xagaaga ugu biiri karo naadiga haatan raadinaysa. 33 sano jirkan oo u dhaqaaqaya EPL-kaasi Japan ayaa sanadkii 2010 ayaa rajeynayay inuu iskaga tago kooxda marka uu qandaraaskiisa dhacayo bisha Janaayo ee soo aadana. Silva ayaa la xiriirinayaa inuu dhaqaaqayo kooxo dhowr ah ay ku jiraan sida Las Palmas oo hore ugu soo ciyaaray. Dhanka kale, Man City ayaa bilowday dalabkeeda doonaysa inay heshiis booska beddelka Silva ay raadiso. Manchester City ayaana booska Silva u aragto xidigaha khadka dhexe kaga ciyaara kooxaha kaleeto. Tababaraha Manchester City ee Pep Guardiola ayaa xiddiga beddelkiisa raadinaya, walow xiddiga beddelkiisa sidii lagu arkay ay adag tahay. Kabtanka kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee David Silva ayaa u wareegaya dhanka iyo Japan. Sida kooxda reer Japan waxa ay ka fiirsanaysaa inay xiddigan ku qaadato qaab amaah. Xiddigii hore kooxda Valencia ee David Silva ayaa oo cadara ku soo bandhigaya garoonka Etihad Stadium waqti ay doonayaan kooxo badan, balse xiddigan ayaa doortay inuu ku biiro dhanka iyo Japan. Lucas Podolski, Thomas Vermaelen iyo Sergio Sabra ayaa ka dhigay horyaalka qaaradda Japan, wuxuuna doonayaa inuu xiddigaasi la midoobo xidigahaasi balmarkana kala sareynta horyaalada maadaama laga nasanayo horyaalada kala duwan. Haddii aynu ka hormarno dhanka iyo horyaalka Serie A Talyaaniga, anigoona kusoo qaadan doono 10 kooxood ee ugu horeyso. Haddii aynu ka hormarno, naadiga Juventus ayaa kaalinta koowaad ku jirta iyadoo leh 32 dhibcood. Inter labaad bay fadhisaa iyadoo dheeshay 12 kulan, waxa ayna leedahay 31 dhibcood, halka Lazio saddexaad ay ku jirto dheeshanayna 12 kulan, waxay leedahay 24 dhibcood. Cagliari 4 kulan ayay ku jirtaa 12 kulan ay dheeshay 24 ay leedahay. Atlanta shanaad ay ku jirtaa 12 ay dheeshay 22 ay leedahay. Roma lixaad ay ku jirtaa 12 kulan ay dheeshay 22 dhibcood ay leedahay. Napoli toddobaad ay ku jirtaa 12 kulan ay dheeshay 19 dhibcood ay leedahay, halka Fiorentina ay dheeshay 9 kulan iyadoona leh halka Fiorentina ay ku jirto kaalinta sagaalaad iyadoona leh dheeshay 12 kulan, waxayna leedahay 16 dhibcood. Naadiga Fiona ayaa fadhisaa kaalinta ugu dambeysa ee 10aad iyadoo dheeshay 12 kulan, waxayna leedahay 15 dhibcood. Marmarkana haddii aynu u boqolno dhanka iyo liigaha Spain, Barcelona ayaa kaalinta koowaad ku jirta iyadoo dheeshay 12 kulan, waxayna leedahay 25 dhibcood. Real Madrid labaad ayay fadhisaa 12 kulan ayay dheeshay 25 dhibcood ayay leedahay. Atletico Madrid saddexaad ayay fadhisaa 13 kulan ayay dheeshay iyadoona leh 24 dhibcood. Sevilla afraad ayay fadhisaa 13 kulan ayay dheeshay iyadoo leh 24 dhibcood. Real Sociedad shanaad ayay ku jirtaa iyadoo dheeshay 13 kulan 23 ayay ku fadhisaa kaalintaasi. Atletico Bilbao 6 kulan ayay dheeshay lixaad ay ku jirtaa 13 kulan ay dheeshay 20 ay leedahay.
kooxda Kateve ayaa ku jirta kaalinta toddobaad waxay dheshay 13 kulan waxay fadhisaa 20aad. Granada ayaa ku fadhisa booska 8aad iyadoo dheshay 13 kulan waxayna leedahay 20. Valencia 9aad ayay ku jirtaa waxayna dheshay 13 kulan waxayna leedahay 20. oo kooxda 10aad ee ugu dambeysa Osasuna ayaa ku jirta booska 10aad waxayna dheshay 13 kulan waxayna leedahay 19 dhibcood. bal markana horyaalka loogu jecel yahay dunida ee Ingiriiska kaalinta koowaad waxaa ku jirta kooxda Liverpool iyadoo booska koowaad ku jirta waxayna dheshay 12 kulan waxayna leedahay 34 dhibcood. Leicester City oo labaad ku jirta waxay leedahay dheshay 12 waxay leedahay 26 dhibcood. Chelsea oo dheshay 12 kulan waxay ku fadhisaa booska saddexaad waxayna leedahay 26 dhibcood. Manchester City oo booska afraad laga tuuray waxa ay dheshay 12 kulan waxayna leedahay 25 dhibcood. halka kaalinta shanaad ee soo gashay kooxda Sheffield United oo dheshay 12 kulan waxay leedahay 17 dhibcood. kooxda Arsenal ayaa booska lixaad fadhisa waxay dheshay 12 waxay leedahay 17 dhibcood. halka Manchester United tabaad ay soo gashay 12 kulan ay dheshay 16 ay leedahay. oo kooxda Wolverhampton waxay fadhisaa booska 8aad waxay dheshay 12 kulan waxay leedahay 16 dhibcood. kooxda Bournemouth waxay dheshay 12 kulan waxay ku jirtaa booska 9aad waxay leedahay 16. kooxda ugu dambeysa ee Burnley waxay ku jirtaa booska 10aad waxay dheshay 12 kulan waxayna leedahay 15 dhibcood. kuwaasina waxay ahaayeen sida looga kala sareeyo horyaalada Serie A Talyaaniga, La Liga Spain, horyaalka ugu xiisaha iyo xamaasada badan ee Premier League. barnaamijkii aad kala socoteen channelkeena Wehel Sportsna halka ayaan ku soo gabagabeynayaa oo aad cidiiq soo idin leh sportska ha hormaro dhamaantiina waad maasantiin sida aad muuqaaladeena aad u daawataan waana ku maasantiin la socodka iyo barnaamijyada ka baxa channelkeena Wehel Sports.